iyadoo ay muddooyinkii ugu dambeeyay maamulka heer gobol iyo heer degme ee Gabiley iyo guddiga abaaraha gobolku ay heegan ugu jireen gurmadka abaaraha deegaanada waqooyiga gobolka Gabiley gaar ahaan dadkii u hayaamay deegaanada gubanka kadibna dib uga soo hayaamay iyagoo ku caydhoobay abaarta ba'an ee saameysay dad iyo xoolaba waxa aanay maanta markii labaad gaarsiiyeen deeq raashin oo gaadhaysa ugu yaraan 600 oo qoys iyo gargaar caafimaad deegaanada isha gudban dooxa siiqabow iyo deegaanada buuraleyda waqooyiga gobolka Gabiley waxaana halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi barasaab ku xigeenka gobolka iyo xubno kamid ah guddiga abaaraha waxaynu ku guda jirnaa gurmadkii xaaladda abaaraha gurmadkan degdega ahaa oo guddiga abaaraha iskaashanaysa ay laba dhinac ugu soo baxday daraatoole waxaan gurmad u tagnay dadkii waqooyiga ka soo qululay qaybtoodii jiida wadada caada ka baxda oo aanu afweyne raashino ugu geynay adeeg caafimaad oo dadka iyo ku xoolahaana loogu fidiyey maantana qaybtii labaad oo dadkii ka qululay deegaanka galbeedka Gabiley aanu isha gudban gurmad ugu keenay gurmadkaasoo sidii ka horaba isugu jira raashin adeeg caafimaad iyo adeeg caafimaadka xoolaha ilaa 600 oo qoys dad ku dhowba raashin halka lagu siinay isla markaana labada tiim ee ka kala socda caafimaadka dadka iyo caafimaadka xoolaha labada wasaaradooda xanaanada xoolaha iyo wasaaradda caafimaadka ee heer gobol ayaguna adeegii u fidinayaan dadka jilicsan teenana inay markay soo baxaan iyagana kaalmo oo kala aan soo gaarsiino cid kasta oo kaalmadaasi ka soo qayb qaadatay oo ay ka mid yihiin ganacsatada gudaha reer Gabiley dadka ashxaasta ay reer Gabiley gurba jooga reer Gabiley mandaqad kasta iyo waddan kasta iyo gobol kasta oo jooga dhamaantoodba oo wax soo bixiyaan aad iyo aad ugu mahadnaqayno oo halkan xanuuno badan ay ka dilaaceen waxa kale oo iyaguna socda team ka socda xanaanada xoolaha sidoo kale dadka deegaanadaasi ay abaartu saameynta taban ku yeelatay ayaa iyaguna ka mahad celiyay deeqdaasi dadka abaaraha dhicinayaan ilaahay baa mahad leh iyo maalleen ayaa noo keentay waxaasi ilaahay baan ka mahadnaqanaa laakiin dadkii soo bixiyayna ilaahay wax khayr leh ugu bedelo walaal maamulka gobolka Gabiley iyo guddiga abaaraha gobolka ayaa sidoo kale tacsiid diiraanyada u diray qoyskii qaraabadii uu ka baxay iyo bulshada reer Gabiley ka taxsiyeeyay Allah u naxariistee maamulaha shirkadda Telesom Sheekh Maxamed Muumin oo kamid ahaa culimada magaalada Gabiley isla markaana saaka aas qaran loogu sameeyay magaalada Gabiley ee xarunta gobolka Gabiley halkan taasuu uga diro dhammaan shacabweynaha reer Soomaaliland khaasatan gobolka Gabiley culimada reer Soomaaliland iyo bahda shirkadda Telesom taasi tiiraanya leh Sheekh Maxamed Muumin oo kamid ahaa culimadii waaweynee ee gobolka Gabiley ahaa maamulihii shirkadda Telesom ahaa dadkii lafdhabarka u ahaa gurmadkan iyo hawshan ummadda u wadno oo maanta salaadii subax ku geeriyooday magaalada Gabiley ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhamaantii sabir iyo iimaan haynaga siiyo sheekhana ha u naxariisto halkaasay Maxamed Muumin maanta ayay kaga ekayd Allah u naxariisto waxaan ka tacsiyadeenaynaa ehelkii iyo qaraabadii Sakariya Nuux Ibraahim telefishinka caalamiga Raya TV gobolka Gabiley